Assalaamu calaykum akhyaarta. Maanta waxaanu ka hadlaynaa caadooyin haddii aad samayso aad waddada cagta saari doonto waddada faqriga. Haddii aad caadooyinkan samayso, waxaa hubaal ah inaad waddadii faqriga iyo shiidka aad u socon doonto. Dad badan way dhayalsan doonaan, waxayna u arki doonaan wax iska kaftan, laakiin aniga waan soo baaray, daraasad badan ayaan sameeyey. Sida dunida caalamku sidoo kale iyagana daraasad ayay sameeyeen. Waxaa la isku raacay qofkii caadooyinka noocaana joogteeya ama mar walba sameeya inuu waddada faqriga ama saboolnimada u lugta saari doono. Haddaba maxay noqon karaan caadooyinkan? Lambarka koowaad waa khamriga. Haddii badanaa khamriga ama alkoholiga aad cabto oo mar walba aad cabto oo lacagtaada dhan aad ku khasaariso, run ahaantii waxaad waddada cagta saari doontaa waddada faqriga. Sababtoo ah mar lacagtaadii kaa baxaysaa, mar waxaad noqon doontaa qof khayr mas'uul ah oo aan waxba lagu aamini karin, ama aan si toos ah u shaqaysan karin, ama aan la dhiilgalayn karin dadka bulshada caadiga ah. Lambarka labaad waa khamaarka. Haddii aad khamaar ciyaarto oo mar walba aad khamaarka aad badsato, waxaa hubaal ah inaad waddada faqriga inaad cagta saari doonto ama saboolnimada. Sababtoo ah haddii aad lacagtaada oo dhan aad dhigato khamaar oo aad guulaysato, aad mar labaad dhigato, waxaa hubaal ah inaad marka labaad inaad ku waayi doonto. Khamriga oo la caadaystaana waa waddada faqriga iyo saboolnimada. Lambarka saddexaad waa hadaf la'aanta. Haddii aad hadaf la'aan noolaato oo wax hadafka aadan ka yeelan dunidan, run ahaantii waxaad cagta saari doontaa waddada faqriga. Sababtoo ah ma jiro dunidan qof bilaa hadaf ah ama bilaa ujeeddo ah. Dad badan ayaa waxay dhihi doonaan annaga dad muslim ayaan ahay, Rabbi subxaanahu wa tacaala ayaana qoray waxa aan cun lahayn. Taas waa aragti khaldan. Rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi aakhira u shaqayso, adduunkana shaqayso. Rabbi subxaanahu wa tacaala qolkaaga adoo dhex fadhiya wax walba kugu keeni maayo, wax walbana afka kaa soo geli maayo. Rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi dadaal, waan ku garab gelayaa. Lambarka afraad waa bixinta bilaa qorshaha. Haddii aad lacagtaada bixiso bilaa qorshe ama bilaa macne, ama aad lacagtaada meelo aan wax faa'iido kaa soo gelayn aad ku qarash garayso, waxaa hubaal ah inaad waddada faqriga aad lugta saari doonto. Sababtoo ah wax walba markii wax lagu daro ayay kordhaan, laakiin wax walba haddii bilaa macno darro lagu lumiyo way baaba'aan, meeshaas ayayna ku soo afjarmaan. Weligaa lacagtaada ama waqtigaaga midna bilaa qorshaha ka dhigin. Sababtoo ah wax walba oo bilaa qorshe ah ma hagaagaan ama ma noqdaan wax guulaysta. Haddii aad lacagtaada aad ku bixiso si bilaa qorshe ah, ama qof walba oo kaa hor yimaada aad farta ka saarto, ama aad khamri ku ciyaarto, ama aad khamaar aad dhigato, run ahaantii waxay caddaynaysaa inaad jidka aad saaran tahay, oo weliba aad mar dhow aad noqon doontid qof bilaa guri ah oo bilaa mataqaanaa bilaa lacag ah. Lambarka shanaad waa dib u dhigista. Dib u dhigistu waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka ka dhiga inuusan horumar gaarin ama meelna uusan gaarin. Sababtoo ah dib u dhigistu waxay kugu samaynaysaa inaad shaqaysan weydo, inaad wax baran weydo, inaad wax walba oo adiga muhiim ku ah inaad dib u dhigto. Marka waxaan kugula talinayaa weligaa inaad iska ilaaliso dib u dhigista, waayo wax badan oo muhiim ku ah ayaa kaa lumi doona. Waana sababta ay dadka dib u dhigista uga cararaan. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iido. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe noo saar. Mahadsanid.